anugu waxaan ahay Cabdirasaaq Axmed Faarax madaxmadow afayeenka guud ee reer guuraaga Puntland siiba gobolka Nugaal adeer bahda saxaafadda waa salaamaya waxaan idin soo booqday inaan ka hadlo shirka ka dhacaya Dhuusamareeb madaxda kala duwan ilaa heer federaal iyo heer maamul goboleed bale waxaan rajaynaynaa rajo weyn baanu ku qabnaa in Ilaahay wax wanaagsan ka soo saaro waxa kale oo jira waa dib dhici ka dhac doorashadu dib male waxa dhacday jiraa dhacday isku socod yacnaha waxa weeyaan gaadiidkii baana iyo diyaaradii waa xirmeen dib waa u dhici karaa waxaana weeyaan codka waxa iska leh shacabka Soomaaliya waxaanu doonaynaa in doorasho qof iyo cod ay dhacdo diyaar u nahay boqolkiiba 90 Soomaaliya waxay doonaysaa doorasho xor iyo xalaal ah mid dadban baysan doonayn mid magaciisa baysan doonayn mid wax lagu soo shubtay baysan doonayn waxay rabtaa in shakhsi kasta oo Soomaaliya in laga qaado cod waxna uu ku diidi karo waxna uu ku dooran karo insha Allah shacabka dhigta u taagan haddii la yiraahdo shirki waa lagu heshiiyay aad bay u farxayaan haddii kale hanka ay qabaan hoos buu dhacayaa waxa weeyaan madaxda sharafta leh aad baan u salaamayaa ilaa madaxweynaha Farmaajo Xasan Ali Khayre oo ra'iisul wasaaraha maamul goboleedyada madaxdeeda sharafta leh iyo inta shirka ka soo qayb gashay aad baan u salaamayaa haddii waxa weeyaan marjac loo noqdaa jira waxayna u taalaa baarlamaanka